xusid mudan in khawaarijta daacish ay in muddo ah fariisimo ka samaysteen buuraleyda deegaanada dowlad goboleedka Puntland si ay khatar joogto ah ugu hayaan nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kalena caalamka ugu muujiyaan inay khatar gelin karaan marinada istiraatiijiga ah ee gacanka cadmeed iyo badda cas. waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeen dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hamiga khawaarijta daacish ay ka qabaan deegaanada dalkaas. waa dagaal xaq ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan. walaalaheen dagaalka ay ku jiraan ee xoreynta iyo iska caabinta argagixisada ah dowladda Soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto waana garab istaageynaa. xukuumadda iyo dowladda federaalka guud ahaan waxay magacaabi doontaa mar dhow guddi u qaabilsan sidii loo garab istaagi lahay taakulayn wixii awooddan ay saamaxayso loogu garab istaagi lahay ciidamada iyo shacabkaas halgamaya ee khawaarijta la dirirsan. sidoo kale guddigaasi u xil saaran ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dal iyo dibadba inay abaabulaan si looga hortago dagaalka khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan ka socda gaar ahaanna deegaanadaas oo daacishtu ay khatarta maanta ku hayso. waxaad dhammaantiin la wada socotaan inaan ku jirno marxalad kala guur ah oo lagu soo gabagabaynayo howlgalladii ciidamada ATMIS dalkan ay ka hayeen laguna bedelayo ciidamo kooban shaqadooduna qeexan tahay oo beddelkoodii qabanayo tiro ahaanna ka yar waajib ahaanna waajibka ay qabanayaan oo aad iyo aad u qeexan yahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka gaaraysa tiradooda wadamada ay ka imaanayaan iyo goobaha ay ka howlgalayaan intaba. xilli hore ayaynu bilownay isku tashi dagaalka maanta dalka Soomaaliya ka socda ee khawaarijta lagula jiraayo wuxuu ku tiirsan yahay oo ku taagan yahay dhinac walbuu yahayba haddii ay tahay midkaad daacish ee hadda ugu dambeeyey ee lagula jiro gobollada waqooyi bari iyo haddii ay tahay kii shabaab ee lagu soo jiray labadii sane ee lasoo dhaafay intaba wuxuu asal u ah tiir dhaxaad oo ku tiirsan yahay waa dadka Soomaaliyeed ciidamada Soomaaliyeed dhaqaalaha Soomaaliya iyo intii suurtagal ah kabka aan ka helnay beesha caalamka intaba.